My name is Dr. 𝐒𝐮𝐻𝐢 𝐭𝐚. I'm a general surgeon and vascular surgeon. I work at Somali Sudanese Specialized Hospital. One of the special services that we give for our patients in our hospital is hemodialysis. magacaygu waa Dr. 𝐒𝐻𝐢 waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay qaliimada guud iyo qaliimada xididdada dhiigga kana howlgala isbeddelka takhasusiga ee Somali Sudanese. Mid ka mid ah adeegyada gaarka ah ee aan siino bukaanada waa samaynta iyo daryeelka marinada loogu talagalay kilyo-dhaqidda Hemodialysis, taasoo ah daaweyn muhiim u ah bukaanada qaba cudurka kelyaha ee heerka ugu dambeeya. For these patients, they need hemodialysis access. So we have different options of providing hemodialysis. bukaanada cudurkan qaba waxay u baahan yihiin kilyo-dhaqid si loo nadiifiyo dhiigooda maadaama kelyahoodu aysan si fiican u shaqeynayn. mashiinka kilyo-dhaqidda wuxuu ka saarayaa sunta iyo wasakhda dhiigga isagoo si kumeel gaar ah u beddelaya shaqadii kelyaha. Isbeddelka Somali Sudanese waxaa lagu sameeyaa saddex nooc oo muhiim u ah marinada xididdada loogu talagalay kilyo-dhaqidda hemodialysis. The best one for hemodialysis access is arteriovenous fistula. This is a simple procedure which is done with AV fistula tani waa habka ugu fiican waxaana lagu sameeyaa qaliin fudud iyadoo la isticmaalayo suuxdin loo kala. qaliinkan waxaa lagu xiraa halbowlaha iyo xididdada ee gacmaha. habkan waxaa la isticmaali karaa sanado badan haddii si wanaagsan loo daryeelo. Second option that we can provide is for patients who are not candidates for arteriovenous fistula. We also provide arteriovenous graft reconstruction. AV graft habkan wuxuu ku habboon yahay bukaanada loo samayn karin AV fistula waxaana lagu sameeyaa isku xirka arteriga iyo veinka iyadoo la adeegsanayo xidid dhiiga oo macmal ah artificial blood vessels waxaana lagu samayn karaa gacmaha ama lugaha waxayna sidoo kale siisaa marin loogu talagalay hemodialysis. A third option which is provided here is with catheter, which is a permanent catheter. Permcath waa nooc gaar ah oo catheter ah oo la geliyo mid ka mid ah xididdada ugu waaweyn ee qoorta ama lugaha kaasoo hoosta maqaarka laga mariyo. Permcathku wuxuu leeyahay faa'iidooyin sida halista infectionka oo yaraata iyo suurtagalnimada in muddo dheer la isticmaalo. So all these three options of vascular access for hemodialysis patients plus maintenance. dhammaan saddexdaas nooc ee marinada hemodialysiska iyo sidoo kale dayactirkooda joogtada ah waxaa laga heli karaa isbeddelka takhasusiga ee Somali Sudanese si loo xaqiijiyo daryeel tayo leh oo la siiyo bukaanada u baahan kelyo-dhaqidda.